سلام كدب هذا الكلام وفي عيها وإلا الدجيل يا وحنود الدجيل إن الله بس هو بقول أنا بود الدجيل إن أيوه إيه ما كان حكيم إن الله كان وضده وحاول يسقط تيجا كبير دقيق يقول لي لكن أنا هذا تنفره صناعة إنه حلا هو مقلع توبيا ساعة على كيمي قلت كل يوم خير هوشة أي إنه هذا هم نسقوي معنا مركي نوبل على طول dadkuna kulli way iska dabayman doonaan afkaarta iyo fikirkana waa la isku biirsan doonaa ujeedada nuxurka hoolkan la isku yimid dawladda hoosena waxa weeyaan inay eldariska aqalka odayaasha inay gobollada dalka way degmooyinka iyo gobollada ka kooban inay kasoo dhaadhiciyaan sidii nabadgelyada loo adkeyn lahaa nabadgelyadaasi oo dalada ku haysan marka ay doorashooyinka soo dhow dhacayaan ujeedada nabadgelyada laga hadlayo waxa weeye doorashooyinkii baa soo dhow maadaama ay soo dhow yihiin in amnigii la adkeeyo marka horena la adkeeyo marka ay doorashada ay kusoo biirtana la sii adkeeyo dhaqankana waxaan looga maarmayn dee waxa weeye waa dadkii yacni ay ku tiirsanayd dhidibada u ahaa nabadgelyada inkastoo awdal malaha kaba xagga horumarkana inkastoo sii leeyahay oo jidad samaynta iyo waxyaalahaas inkastoo anagu sii dheernahay gobollada kale oo ay hadda bilaabeen haddana cid kasta waxaan dhiirigelinaynaa yacni inay maxaa haydaan hawsha laga hadlayo iyo ujeeddadeeda iyo sida dadka loo gaadhsiinaya yaa in maxaa haydaan gobollada oo dhan ay u marayaan golaha guurtidu oo ay hawshoodiina tahay maadaama ay xukuumadii yihiin iyaguna waa xukuumadii dhannaaye sharcigaba iyaguna noqonay mar hadday oqaasha iyo salaadiinta ay iyaguna halkaa galaan guurtigana waxay sii noqonaysaa sharcigii bay sii noqonaysaa oo waxay ka yimaadeen iyaguna xagga dhaqanka welibuna ka yimaadeen golaha guurtida waxaan u sheegayaa gobolka awdal horta waa gobol aad u nabadgelya wuxuu ka kooban yahay 6 degmo gobolku 6 degmo waxaa la kala yidhahdaa degmada boorama degmada qurjeed degmada iranka degmada luqaya degmada bakki degmada dirac 6 degmo 4 degmo waa 4 degmo degmooyinka hore ka mid ah 2 degmona waa degmooyinka kor hayda oo qurjeed iyo iranka degmooyinka cusub ka mid yihiin waa iska caadi kamid la yidhaahdo taasliif degmooyinka cusub ka mid yihiin gobolku sidaas uu yahay 6 degmo uu ka mid yahay run ahaantii nabadgelyada gobolku waa gobollada ugu nabadgelyada badan Somaliland hase yeeshee waxaa jira kaabayaashii nabadgelyada ayaa ku yar gobolka oo run ahaan loo hadlo degmadan booramo oo kale waxay leedahay 2 saldhig waxayna u baahan tahay ugu yaraan 6 saldhig way weynaatay xagga gaadiidka booliska aad bay ugu liidataa degmada tirada booliska ama maaragtay shaqeysa ee boolis ahaan joogta degmada booramo way ku yartay dhulka kalena iska badaa tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa maanta waxaa ka dhacay shil baa ka dhacay bishanii 24-keedii degmada luqaya waxaa isku duqeeyay 2 gaari oo 2 dhagadka isku duqeeyay 2dii gaari waxa liya waxa ay ku tagaan boolis weynay baaburraanowgeed xagga gaadiidka aad uga liitaan annagu waxaanu ka soconaa golaha guurtiga wuxuu go'aansaday inuu kormeer ku soo maro gobollada dalka 2 gruub baan ahayn gruub galbeedka oo ka soo bilaabantay gabiley awdal selal saaxib iyo gruub ka bilaaba burco laascaanood sanaag 2 qaybood baan isku qaybinay annagu markaa waxaan ahayn qaybta xagga galbeedka shalay waxaan ahayn gobolka gabiley maantana ilaahay wuxuu noo suurtogeliyey inaanu joogno gobolka awdal ujeeddada iyo socdaalka iyaga oo kooban waxa weeyaan wacyigelinta xagga nabadgelyada ah maadaama ay nagu soo dhow yihiin doorashooyinkii dowladaha hoose awalna xisbiyadu 3 ahayna maanta 9 la tartamayaan bal waxaad ka qiyaas qaataan 9 urur oo min 21 qof halkan ka sharaxaya waa imisa waa 100 iyo waxaan malaynayaa 198 ها وأوضر كليا سحمد دي ورد سحمد كبدن بامات إنه وصل كردي وحاول قلوا وعن صدي وكرمير كاس
in dadka la wacyigeliyo oo la yidhaahdo kii la doortaaba waa inankeenii wax isku qabqabsiya iyo ficiltan iyo qabyaalad iyo ururadu inayna noqon ay noqdaan ururo qaran oo si xor oo xalaala loo tartamo waxaa kaloo jirta nabadgelyadu de waa tiirka keliya tee nolosha dee nabadgelyana haddaanan jirinna wax kale oo jiraa ma jiro marka ujeeddadeeda koowaad ama socdaalka iyagu waa wacyigelin dadka in la dhex maro oo la yidhahdo walaalayaal nabad ku codeeya nabadgeliyo mar walbaba ha la adkeeyo socdaalka iyo ujeeddadayadu waa intaa walaalayaal waxaana inta kale ku daraya xildhibaanada iga dambeeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u soconaa maaha farriin aan idinka idin gudbina loo keliyey waxa weeyaan dee waxna waa idinka qaadayna oo dee midaan idin dhiibayno wada kaga tegi mayne xaaladda gobollada iyo degmooyinkana inaanu qiimayno oo wixii jira aanu qaadno si maanta waxa ugu muhiimsan socdaaladeedan gulihii gurtida markaan iminka noqodkayga u furmaya had iyo jeerna ajandayaasha laga hadlayaa waxay ku salaysan yihiin in xaaladaha dalka ka jira lagaga doodo hay-adaha dawladda ee loogu talagalay inay howlahan qabtaanna wixii kaga aaday wax laga weydiiyo markaa bal horto wixii aan weydiin lahayn wasaaradaha iyo hay-adaha dawladda inaanu gobolladii marro oo xaqaayiga jira soo aragno ayaa horta ugu muhiimsan shayga ugu muhiimsan waa kan oo dee iyagii laftoodii de waxanay sheegayaan mas-uuliyadda ka haayeen in la weydiiyo waxay ka qabteen halkan badha saab uu sheego xaaladda nabadgelyada waxaa u horraysa waxaan ka hadlaynaa wixii wax lagu qabanayayba dee haddaana jirin nabadgelyaba jiri mayso oo ninka halkan cid wax ku yeela haddaan gaadhi u tagaa soo qabtaba la heli waxba ma jiraan ciidanka hadduu yar yahayna waxba ma jiro inta keliya ee dee hareerahaynu ku taagan nooc cuqaasha iyo salaadiinta iyo wuxuba nabadda dee waa korjoogi wixii ay gartaanna inay qabtaan oo dee ay cidda hay-adda shaqada kule u gudbiyaan baa muhiima haddii hay-addii shaqada qabanaysayba iyadii ay fadhiid noqoto oo waxay wax ku qabataaba aanu jirin waxa weeyaan dhibaatadeeday leedahay marka dee waa waxyaabaha wasaaradda daakhiliga looga baahan yahay inay magaranaysa waana waxyaabaha nooga soo baxaya kolley gobolladan marayno ayay ka mid tahay waxa kale oo aanu eegaynaa oo aanu dee wacyigelinaynaa dhibaatooyin badan baa iska jira ururaa imanaya ururadan jira ee soconaya marka hore dee jabhadaha dalal qabsan jiro oo lagu kala qabsan jiro horta dan iyo kursi baa la kala qabsanaya hadba noocoo doona iyo wejigii doonaha loo dhigo maantana tii jabhad bixi jirtay ma jirtay iyagoo ururo siyaasadeeda oo cadhaysan baa meeshii soo gelaya 9 urur oo dee maanta gebile waxaan laga yaabaa boorama 21 ayaa ka soo baxa 9 urur 22 baa isa soo sharaxay intaasiba marxaladda inagu soo wadan waa dareemi karaysaa 22 baa soo baxaya inta kale ma ku wada qancayaan baa isweydiinay nin walibana guulaystay buu diri tooranaya dadka waajib baynu ugu leenahay inaynu ka wacyigelinaa maalintuu codka doonayo ama jeclow ama necbowda inaad kaarkaa ugu rido wey laakiin wax kale kugumale hadduu ku dhaco waa inu halkiisa ku joogsan waa inanu fidma adiga kula soo gelinta haddii codkii aad siisay uu wax ku waayo waa inaanu dee cadho dabeetna haddana dadkii dib u kicin ila waynu hobnaaba u 22 keliya ka soo baxaya waxaa loo xaysadinaya nin walba dhaqaale iyo waxbaa ka baxaya dareen bay ku yeelanaysaa xanuun fara badan bay ku yeelanaysaa marka la yidhaahdo berrito waa lagaa hadhaya waxbay ku abuuraysaa markaa taana waxay u baahan tahay dhaqanku inuu dabar ka yeesho oo dadka la kantaroolo